ishaada ku hay naftaada deganaanteeda ilaali maskaxdaada dadka qaarkiis waa danaystayaal maanta adiga ayay kula jiraan berina cid kale ayay la safanayaan isilaali adiga ayaa iska taxdiri karo cidna kaama taxdirayso naftaada maskaxdaada adiga ilaasho asalaamu calaykum way nagu filan tahay inaan gudaha qalbigeena ku sidino ruux wanaagsan inkastoo aanan ahayna dad dhammaystiran balse niyadeennu waa mid daacad u ah qof walba mana nihin laba wajiile taasina way nagu filan tahay aniga iyo adigaba thank you sharaftaadu waa quruxdaada xitaa haddii aad keligaa noqoto cidnahaas ku qasbin yaanay adigina cid kuu qasbin guulayso mar kasta wixii tegay ha u welwelin wax tagay tiirsamaad ma leh tallaabada hore u qaad noloshaada tacabkeed lahaw intaad 10 jeer ooyeyso ama murgayso wakhtiyoona kaa tegine tilmaamka lahaw noloshaada ama hadafkaada soona dhawaaw asxaabtaadana sii gaarsi u sheer gareen jamco wanaagsan soo dhawaada walaalihaygi jamcadan ilaahay jamca khayr badan ilaahay nooga dhigo jamca caafimaad la ilaahay nooga dhigo jamcadan jamcadeeda kalena ilaahay nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo ramadaan soo dhow ilaahay ramadaankana nabad iyo caafimaad ilaahay nagu gaarsiiyo aan ku dadaalno qur'aan akhriska iyo adkaarta aan ku dadaalno maalinta jamcada saacada ku jirta saacatul ijaabah maaragtay aan tasbiixda aan ku dadaalno salliga nabiga sallallahu alayhi wasallamna aan wada badino insha Allah salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam aan ku dadaalno walaalaha qaaligeena u sii sheer garay insha Allah assalaamu alaykum warahmatullahi soo dhawaada saaxiibadeyda qaaliga maanta su'aalo diini ayaan wataa laba su'aal ayaan wataa labadaasi su'aal isku soo daya hadii aad garatidna walaalaha kale u faa'iiday su'aasha koowaad نبي محمد صلى الله عليه وسلم نحريسي نبتقلي كوركي ساحاتي أنت آن الدين تو إسلام كأن كسو دقين كور دين تبو هايستي وسؤاش كواد سؤاش اللبادنا أبو تحاوى مسارورة أيايدا شيء ما قجر أياينا من تانو دا شيء لابدا سي سؤال اسكو سو ديا أو سو جبابا أدي هدا تخانيد walaalaha kale u faa'iiday hadaadan adiga garanaynin like soo taabo oo si meel dheer ay u gaaro fiidiyoga oo walaalaha kalena ay kugu faa'iideeyaan albaaba badan oo ka xiran hadii aad ogaan lahayd waxyaabaha ka dambeeya waxaad dhihi lahayd alxamdulillah ilaahay baa in badan ugu shukrin lahayd oo haddana alxamdulillah leh إلهي البابدي اسمه واضح حرمانه السلام عليكم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد روحي عمل وناكسن سمايا وخو أفلي وعمل فلي نفتيسا روحي عمل خن سمايانا وخو دبي أدلي نفس ديسا إبنا معها مدبا أدوم ديسا السلام عليكم سلام صاحب يال سو دواada laba suuradood oo quraanka kariimka kamid ah waxay ka hadlayaan halaag ayay ka hadlayaan suurada koowaad waa weydul likulli humazatin lumaza suurada labaadna weydul lil mudaffifiin waa labadaasi waxay ka hadlayaan mid koowaad waxay ka hadlaysaa xoolaha dadka ayay ka hadlaysaa midda labaadna sharafta dadku waa haddaba ummad xoolahooda iyo sharafkooda ha kaa nabadgalaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada walaalayaal saaka haddii ilaahay nabad ku soo kiciyey alxamdulilah dheh
haddii ilaahay caafimaad taama kugu soo kiciyey intaad soo kacday aad soo dukatay aad soo shaqo tagtay ama waxbarashadaadii aad soo aaday alxamdulillaah dheh. qof baanan haysanin maanta shaqo, qof baan haysanin waxbarashada, aanan awoodin wax dhan. qof baa jiifa sariirtii adi aa ka soo kacday aa ka soo danaysatay aanan ka kici karin oo weli jiifa oo ku ducaysanayaa ilaahu mar iga kici sariirtaan. adigina ilaahay caafimaad taama ku siiyey, shaqadaadaa soo aaday, waxbarashadaadaa soo aaday, alxamdulillaah ma lihid ee ilaahay ugu shukri, alxamdulillaah dheh. wax kastoo aad dhibsanaysidna ilaahay baa kaa dulqaadi karo ee alxamdulillaah dheh. ilaahay rabbulcaalamiinka albaab khayr qaba kuu furaayo. qof aan dhib sheeganaynin ma jiro maanta. qof kastoo wax buu sheeganayaa ee ilaahay qof kastoo meeshii caragiga ka haysto ilaahay ha ka bixiyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhibaato walbo aad ku jirtid mar bay kaa dhammaanaysaa. dhibta aad ku jirtidna mar bay intay kaa dhammaato xasuuso aad ka sheekaysid ay kuu noqon doontaa. noqo qof adag. mar walba waxaad la kulmi doontaa caqabado adag. caqabadahana way iska dhammaanayaan, waad ka gudbi doontaa. inna maca alcusri yusran. dhibta maxaa ka dambeeya? fudeeda ka dambeeya. asalaamu calaykum. kuwii salaada ka tegey ayaa la weydiinayaa maxaa cadaabta saqare idin geliyey? waxay odhanayaan maanan duko jirin, salaaddii ayaan ka tagnay, masaakiintana maanan quudin jirin. hadda waxaan joognaa adduunyadii ee isbedbeddelaysay. aan masaakiinta quudino, salaadana yaanan ka tegin. salaad haddii laga tago dhibteeda adduunyadaa lagu arkaa. intaanan aakhiro la gaarin adduunyadaa lagula kulmaa dhibteeda. marka salaadda aan ilaalino, masaakiinta aan ka warhayno inta aan adduunyada aan joogno. wassalaamu calaykum waraxmatullaah. ha la wadaagin qof kasta sirtaada. u fiirso, dad badan oo waxaa jira kor uga eg dad wanaagsan, laakiin gudahooda aanan fiicnayn. qofka noocaasi oo kale ah inuu wax kuu dhimo mooyaane waxba kuuma faa'iideynaayo oo waxba kuuma taraayo. mid ka mid ah dadkii wanaagsanaa ayaa waxaa la weydiiyey ma taqaanaa qofka ducadiisa la aqbalo? wuxuu yidhi ma aqaano, laakiin waxaan garanayaa midka aqbala ducooyinka. haddaba qalbigaada ha ku xidhina makhluuqaad, waxaad ku xidhtaa qalbigaada allah subxaanahu wa tacaalaa. ulaasada aad tabanayso asiga ayaa kaa dulqaadi karo, asigaa ilbaab khayr qaba kuu furi kara. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aan qalbigeenna ku xidhno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.